السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو وعبد العاقرة جنرك داونيسيد وعاقرة جنرال كسودوا مقال عسب هذا نوع عسب تاهي سودوا سبسكرايب ونصار هذا هوري لجوكتي ادي ادان كاغ مدعنا داو شدادي iyo la socodkaada kusodwaada muuqaalkayga. waayahay kusodwaada muuqaalkayga waxaan kusoo qaadan doonaa Chelsea waxay soo dhaweey doontaa Manchester City maca Chelsea ka cusub lineup-kaygii iyo saadaalintii kulanka imisa ayuu ku dhamaan doonaa. waayahay markaan u fiirino Chelsea last 5 gamekii ee u dambeeyay ay soo ciyaartay 3 kulan waa laga soo badiyay hal kulan draw ay soo gashay hal kulan bas ayay soo badisay. Chelsea waxaan dhihi karnaa bishii December ay soo dhamaatay sanadkii hore 2020ka uma aysan ahayn bil fiican waayo ayadoo la geliyay Chelsea 200 iyo maazada milyan ayay waxay keeneen bishii December natiijo aan wanaagsanayn. marka waxaan dhihi karnaa natiijo wanaagsan ma aysan ahayn. waxaan u baahannahay sanadka cusub inaan ku bilowno guul ama wadadii guusha inaan ku soo laabano. kulanka waa kulanka ugu weyn isbuuca waxa ay wada ciyaari doono Chelsea waxay u bixi doontaa Manchester City. kusoo dhawaaw shirkii jaraa'id ee maanta Frank Lampard oo wuxuu ku sheegay Ziyech inuu kulanka diyaar u yahay. That's good news. Chelsea taageere haddaad tahay ama Chelsea fan haddaad tahay waxaa good news ku ah Hakim Ziyech uu soo laabtay. waxaa kaloo ka maqan Chelsea Reece James kulankan diyaar u mahan waxaa kulankan ka qayb qaadan doono ama booskiisa buuxi doono captain Azpilicueta. inta kale Chelsea ciyaartooydeeda waa diyaar kulankan waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan. Chelsea iyo Man City kulankii ugu dambeeyay ee isku baxan wuxuu ahaa bishii June 2020 Chelsea ayaa ku badisay 2-2. Chelsea markaas u baahneed dhibcaha inay hesho si Champions League ugu soo baxda. kale Manchester City last 5 kulan ee u dambeysay ee soo ciyaareen 3 kulan way soo badiyeen 2 kulan draw ayay soo galeen. waxaan dhihi karnaa bishii December Manchester City natiijo fiican ayay meeshaas ka heshay. kulankan waa kulanka ugu weyn isbuuca ee Premier League waa sanad cusub waa sanad 2021 waa xilligii lagu kala baxayay horyaalka haddii laga badiyo markaan soo noqod ma lahan waxaad u tartami doontaa January time haddii laga badiyo bishan January kulamada ciyaaraysa horyaalka waxaad u tartami doontaa only sidaan Champions League ugu soo baxa. marka waxaan rajaynaynaa Sundayda inaan ka badino Manchester City. waayahay markaan kusoo dhawaaw lineup-ka markaan goalkeeper-ka waxaan keenay Edward Mendy. difaaca bidixda waxaan soo geliyay Base Newell kulankii Aston Villa si fiican ayuu ciyaaray dhaawacii uu ka bogsaday markaan kulankan Manchester City waxaan u rajaynaa inuu si fiican u ciyaaro. center back-ga waxaan soo wada celiyay Thiago Silva iyo Zuma waayo kulankii Aston Villa ayuu Lampard nasiyay kulankan weyn ayuu u nasiyay. difaaca midig waxaan keenay Azpilicueta maadaama la heli karin Reece James. qadka dhexe waxaan soo geliyay Nicola Kante Kovacic iyo Mason Mount ahaan saadaashida waxaan soo gashtay Hakim Ziyech bidixda midigana waxaan keenay Captain America Pulisic. afroy ama waxaan geeyay Olivier Giroud waa lineup-ka ugu macquulsan oo aniga aan isleeyahay Frank Lampard tomorrow uu kusoo geli doona haddii Chelsea lineup-kan kusoo gashane waa macquul ah inaan guul ama natiijo wanaagsan aan ka keeni doono kulanka weyn ee Guardiola. markaan u fiiriyay waxaan ku saadaaliyay 2-1 markaan u fiiriyay Chelsea oo 3 kulan last 5 gamekii 3 kulan laga soo badiyay hal kulan draw soo gashay hal kulan ay badisay. dhammaantood 5 kulan ee December soo ciyaartay Chelsea waxay u ciyaarayeen kulan iska boorina 3 kulan waaba nagala badiyay hal kulan waa draw aan galnay hal kulan waxaan ku badinay ciyaar aan wanaagsanayn. marka waxaan jeclahay inay tomorrow ku soo laabtaan wadadii guusha. kulanka waa kulan iska adag waa kulan weyn waxaan ku saadaaliyay 2-1. Chelsea maxaa u rajaynaysaa kulanka Axadda imisa ayay ku dhamaan doontaa soo saadaal adigane. intaan videogan duubayay ciyaar ayaa hadda soo dhamaatay Manchester United waxay ku badisay 2-1 Aston Villa ayay ka badisay. Man United hogaanka waxay la qabatay Liverpool. Man United oo dhimaya kulan Liverpool waxa u dhiman Monday night ayay ciyaari doontaa haydan waxa u dhiman hal kulan waa min 33 dhibcood kala xan Chelsea fiirimo no Chelsea hoos Arsenal naga badisay malan Tottenham no Manchester City halkeedu waa iska halis meelaan ka fiiri waa ka ever Chelsea waxaan dhihi karnaa lacagtani la geliyay sida u ciyaarisiin isma leh hadda waa kalaab la geliyay 200 milyan. Chelsea come on hurdada ka kaca Sundayda waxaan u baahannahay kulankaas inaan badino saan u galno kor. kulanka Manchester United kulanka ka horeeyay Everton waa laga badiyay ayadana sidaas ay tahay hoos ayay u soo socotaa.
Chelsea waxaa u rajaynayna inay badiso Sunday aad iyo aad u mahadsantahay daawashadaada oo ku mahadsantahay mar kale dhiirigelintaada iyo laagtaada salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh